السلام عليكم ورحمة الله. سو دوادا magacaygu waa Cabdinuur. waxaan idinla wadaagnay maalmo ka hor in ay soo baxday deeq waxbarasho ah magaceedu uu yahay Dad Leadership for Africa oo lagu talagalay wadamada Afrika gaar ahaan wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya ku jiraan. marka waxaan jeclaystay maadaama aan marka hore idinla wadaagnay xogta guud ayna ku adkaatay dad badan inay apply gareeyaan maadaama waxa boorta laga dhex buuxinayo process badan ay u baahan tahay in aan idinka caawiyo qaabkii aad scholarship-kaas u xareysan lahaydeen. dabcan scholarship-ka hore anaa ugu imid semesterkii koowaad semesterkii labaad baan hadda ku jiraa jaamacadda. marka maadaama aan hore u garanayay waxaan jeclaystay inaan adinkana idinkaga faa'iideeyo. okay, marka hore aan ugu soconno xagga kore. markaad Google Chrome ka soo furatid laba mid waa samayn kartaa inaad haddii linkiga aad haysid aad linkiga raacdid ama inaad Google Chrome ka aad ku qortid sidaas hadda xaga noogu qoran oo kale. waxaa noogu qoran Dad Leadership for Africa. Dad Leadership for Africa waa intaas kaliya ku qoraysaa. inta kaliya ku qoraysaa. markaad ku qortid aad ku dhufatid maxaa kugu soo bixi doona optionadana lagu siin doonaa. waxaan ka dooran doonaa kan aan idiin soo weyneeyay hadda. waxaa ku qoran Leadership for Africa Program for Ethiopia, Somalia and Sudan. sida kaasaad ku dhufanaysaa. okay, marka horada soconaysaa waxaad fiirinaysaa requirementiga lagaaga baahan yahay. requirement noocee ayaad rabtaa inaad buuxisid. requirementiga markaad ku dhufatid waxaa kuu soo bixi doona xagga hoose. okay, requirementiga markaad ku dhufatid waxaa xagga hoose kuu soo bixi doona laba option oo kale ah wadanka aad joogtid inaad dooratid iyo programku wuxuu yahay. programku siisa waa master waa graduate. wadanka waxaan ka dhiganaynaa marka Soomaaliya. 5 wadan soo 6 wadan 5 wadan ayaa meesha noo saaran. marka Soomaaliya aan ka dhiganaynaa. kan Itoobiya joogana waa la mid waxba kuma kala duwana. xagga hoosena waxaan ka dhigaynaa graduates. labadaasba sidaas aad ka dhigaysaa graduates iyo Soomaaliya ama Itoobiya kii aad joogtid. waxaad ka jaamacad ka soo baxay oo baajkiisa Soomaaliya. waa qasab inuu baaj haysto. waa xaggaana requirementiga kuugu cad qofku waa inuu haystaa digrigiisii. digrigu waa inaysan 6 sano ka badan uusan ka badnaanin xilliga uu qaatay. 6 sano ka hor haddii aad qaatay ma apply gareyn kartid. laakiin chance kalaad haysataa oo ah inaad master labaad apply gareysid. qofka hadduu haysto masterkan wuu soo apply gareyn master labaad wuu apply gareyn karaa. okay, waxay ku jirtaa xaggaanay kugu jirtaa. waxay ku jirtaa application procedure-ka. okay, marka requirement-ka sida ku cad waa inuusan digrigaagu 6 sano ka badnayn. upper class waa inaad ahayd. haddii digrigaagu uu ka bato 6 sano baan ka wadaa 6 sano hadduu ka bato waxaad samayn kartaa master labaad ayaad codsan kartaa. masterta labaad markaad codsanaysa waxaad ku dhufanaysaa application procedure-kaasaad ku dhufanaysaa. oo 3 option oo midna application requirement, application procedure iyo submit application-ka ah. marka application procedure ma ku dhufatid hoos baad u soconaysaa. xagga waxaa noogu qoran applicants who already. xagga waxaa noogu qoran okay, xagga maxaa noogu qoran applicants who already hold a master's degree. maxaad samayn kartaan formkaasaad la soo degaysiin. additionalka xaggaad ku dhufanaysiin gudahaad usii galaysiin kadibna waxaad la soo degaysiin formkaas ma badna waa 2 page. formkaasaad buuxinaysaa kadibna portalka kaasaad ku diri doontaa iyo dokumentiyada wada socda. kaas waa qofkii master haysta. kii degree haystana xagga requirement-gaas aad diyaarsanaysaa. waxaa lagaaga baahan yahay CV-gaagii shahaadooyinkaagii bis horad u soconaysaa. luqadda Ingiliishka waajib ma aha. qofka haddii uu Ingiliish haysto na wuu ku dari karaa. waxa ugu muhiimsan waa inay wuxuu ku soo bartay Ingiliish ahaadeen.
haddii ingiliis wax kusoo bartay waa bis oo yacni jaamacadiisu ingiliish ay ku baxaysay shahaado dheeraad ah oo wuxuu ka socdaynaya jaamacadda waxa la dhaho medium instructionka oo ingiliish ah inaad ingiliish kusoo qaateen jaamacadda ka soo cadayn kartiin jaamacadda way bixiyaan waraaq caadiya oo kugu cadaynaysa inaad ingiliish ku qaadatay waxbarashada jaamacadda marka ka soo qaadanaysa waraaqdaas haddii aad haysatid shahaado jaamacadeed aad shahaado ingiliish oo luqadda ka qaadatay haysatidna ama B2 ha noqoto ama C1 ayadana waa si wanaagsanoo ayadana waad ku buuxsan kartaa jaamacadda Jarmalka English ku baxaysaa Soomaa jaamacaduna English bay ku baxayaan waxaa lagaga baahan yahay waa in jaamacaddu English ku baxaysa kaliya dad jaamacad English ku baxaysa kaliya ka aqbalaysa jaamacad luqad kale ku baxaysa kama aqbalayso waxay ka aqbali kartaa haddii aad haysatid shahaado Jarmal ilaa B2 ilaa C1 miya mise B2 aan u malayn haddii aad haysatid way ka aqbalaysaa laakiin haddii aadan Jarmal garanayn waa inaad haysatid English kuma xariisan kartid English waa inaad taqaanid exactly English la dalbanaysaa marka horaan u soconaynaa waxaan ku dhufanaynaa submit application markaa waxaagii diyaarsatid submit application ayaan ku dhufanaynaa waa optionkaas okay waad aragtiin saasay noogu wada socdaan application requirement application procedure contact and consultation saasay noogu wada socdaan marka application procedurekaas waad ku application submit an application aad dhahdid hoos baad u soconaysaa hoos u soco xagga hoose waxaa noogu qoran dad portal waa portalka aad wax ku buuxin doontid aad wax ka diri doontid applicationkaaga dhan aad ka diri doontid okay email lagu xiriiraa ma jiro portalkaas ayaad emailkaaga iyo portalka isku xiran yihiin dad markasta ay wax kuusoo dirto macluumaad kuusoo dirto wuxuu kuu sheegi doonaa aad buu securitykiisu u sareeyaa portalku marka ma rabaan ayagu inay email wax kusoo diraan waxay ku leeyihiin go to portal oo kale fariin baa kuu taalla markaas waad ku dhufanaysaa portalkaagii waad aadaysaa waad fiirinaysaa fariinta kuu taalla waxay tahay deeqda waxbarasho codsigeedana goormu ku egyahay ilaa June 9keeda ilaa June 9keeda ka hor qofku dalban karaa waa waxa inaad hore iskaga sii dalbatidba laakiin haddii wax kaa dib dhacaan waa June deadline waa June 9keeda okay marka hore aan socono to the application portal baan ku dhufanaynaa mid kale tan hadda qofka dalbanayo waa midii winterkan uu bilaabi lahaa Soomaa haddii la soo aqbalo winterkan uu bilaabi karaa waxa winterka dambe winterka 2024 weey uu bilaabaya 23 dhan processkiisa soconaya iyo aqbalaadiisii iyo inta badan waxay aqbalaadu waxay soo dhacdaa inta badan ilaa December marka December meelahaas haddii qof lagu aqbalo weey laba process baa la maraa mid dokumentiyada xareynaysa dokumentiyada haday qiimeynta koobaad ka gudbaan waxa lagu leeyahay xilligaas interview isku diyaari interviewga markaad ka gudubtid waxaad u gudbaysaa interviewga markaad ka gudubtid 20 cisho kadib ayaa kuuso jawaabi doona waxay ku dhihi doonaan ama waad dhacday ama waad baastay haddii aad baastid wixii intaa ka dambeeya jaamacadahaagii baad raadsanaysaa admission waa inaad raadsatid ayagaana ku hagi doonaba waxba taasi dhib male okay markaan dad portal ku dhufanay xaggaan una keenay ciwaan iyo password miyaa laga samaysanaa mise password iyo waxaad samaysanaysaa iyo ciwaan qofka meeshaas register now marka xaggaan markuu aan tagnay wuxuu noo soo saaray inay xaggaan noo taalo meel emailka la gelinayo iyo maxaan ku dhahaa meel emailka la gelinayo meel passwordka la gelinayo laakiin adiga kuma samaysana hadda email iyo password midna marka waxaad tagaysaa register now register now baad ku dhufanaysaa maadaama aynan kuu samaysanayn adiga password iyo email midna okay markaan ku dhufanay xaggaan noo soo baxday waxaa kuu soo baxday inaad macluumaadkan buuxisid emailkaas wuxuu noqon doonaa usernamekaaga new password iyo inaad password confirm garaysid genderkaaga magacaaga koobaad magacaaga u dambeeya iyo luqadda aad jeceshay inaad markaas aad kula xiriirtay marka waa German iyo English baa ku jira English baan luqadda ka dhigan doonaa preferred language qofka markii uu geliyo hal mar hadaan ka dhex galo emailka haduu qof markuu geliyo isla markii waxay soo dirayaan confirmation code soo dirayaan confirmation code verification emailka uu ku diraya okay way noo soo baxsanaya oo password samaysanaya sax okay marka xaggan waxaan gelin doonaa emailkayga tusaale ahaan email aniga ii samaysan baan gelin doonaa iyo passwordkayga okay hadda emailkayga waa geliyay emailkayga waa sidaan waxaan hoos baan u soconayaa waxaan tagi doonaa
xaggan oo ah password inaan samaysto new password iyo confirm password. Okay, marka hadda passwordkii waan geliyey. xagga waad arki doontaan passwordka marka aad gelinaysid waa inay calaamadahaas oo dhan la socdaan. kasoo qaado kale haddii aad gelinaysid waxaad ku samaysan kartaa da 2023 oo kale at ama maxaan ku dhahaa waxaad raacinaysaa xarfahaas mid ka mid a calaamadaha symboladaas iyo number waa inuu u dhaxeeyo 8 ilaa 16 passwordku uusan 8na ka yaraan 16na ka badan. waa inuu xarfo yeesho number inuu yeesho hal xarfo weyn inuu yeesho hal xarfo weyn calaamaadna yeesho hal xarfo uu yaraan markaad ugu yartahay waa inaad xaraf uu upper case ama capital ah iyo mid maxaan ku dhahaa small ah number iyo calaamadahaas oo afar geesta ama hashta dot waxyaalahaas symboladaas oo kale calaamadaha ah mid waa inay la socoto. Okay, marka isla passwordkii baad ku celisay new password iyo confirm password. Okay, xaggan genderka mail baan ka dhigtay. First name kaygana Cabdinuur baan ka dhigtay. Last name kaygana waa Maxamed. Okay, xaggan waa preferred language oo aniga marka hore idin iro waxaan ka dhigaynaa English. Preferred language waa luqadda markaas aad boortalku kugu samaysnaan doono oo wixii kugu soo dhacay sidaas ku noqon doonaan aadna maxaan ku dhahaa iconiskana aad ku kala arki doontid. marka English baan ka dhigtay. xaggaasna tig baad siinaysaa. xaggaas maaragtay data privacy statement hooseeda I took note. marka continue baan leenahay. Okay. Continue node. send verification ama la halkan send waxaan idinka hilmaamay waxaad samayn kartaa send verification code wuxuu kugu dhacayaa emailka ani xagga igu qoran bay igu dhici doonaa talaabada koowaad marka codekan verification codekan tirsanaynaa waa ku dhufanayaa emailkaaga furayaa xaggaan aniga ii yaallaa. Okay, marka koodkii baan kala soo baxay emailka waan geliyey wakaa kadibna maxaan leeyahay verify code waa xaqiijiyey. marka qaybta hore waad sii buuxinaysaa waxaad leedahay new password confirm new password genderka magacaaga hore iyo magacaaga u dambeeya luqadda kadib continue baan leenahay. sidaas kugu samaysan yahay. marka wuxuu ku soo saari doonaa inaad safe garaysatid oo markaas uusan u baahan inaad raadisid. xaggaa sare maxaa kugu soo saaray safe hadii aad dhahdid password kuu safe garaynaya uma baahanaysid mar dambe inaad markastood ku dhufatid wuxuu xaggan kugu safe garaysanaan doonaa. Okay, marka xaggan markuu joogo wakaa wuxuu igeeyey gashuu ku leeyahay hadda sign in with that ID. Okay, marka waxaan geliyey markuu yiri sign in waxaan geliyey emailkayga iyo passwordkayga kadib sign in baan leeyahay. waa inuu igeeyo marka portalkii uu toos ii geynaya magacaaga kor soo saaraya Cabdinuur Maxamed. wakaa hadda waxaad aragtiin magacayga inuu xagga saaran yahay uu ii samaysmay portalkii maadaama uu ii samaysmay xaggan kore. Okay, xagga kore waxaa noo saaran optionno kala duwan. mid waa start project funding personal funding insurance waxaan oo dhan mid baad ay noqon doontaa in loo buuxiyo laakiin waxa hadda adiga ku quseeyo waqti xaadirkan markii aad insurance waqtigeeda gaartid insurance waxaad u baahantahay insurance ku dhex diraysaa personal fundingka waxyaalahaas oo kale laakiin hadda application kaaga waxa ku quseeya xagga hoose waxa ku qoran applicationkaas aan ku dhufanaynaa. Okay, applicationka aad aragtiin ayaan ku dhufan doonaa hoos baan u soconaynaa. markaa application ugu dhufo
okay hadda wuxuuna geeyey waa kan portalkii buuna dhex keenay waan ku dhex jirnaa laakiin xaggan waxaa ku qoran aan idin tuso xaggaa waxaa ku qoran leadership for Africa 2024 xilliga yani 2024 wuxuu kuu leeyahay xilliga fundingkaagu bilaabanaya waa 2024 wakaa funding program ba xagga hore ku qoran okay hoos baad u soconaysaa country maadaama aan Soomaaliya soo geliyay sidii buu igu jiraa laakiin wadan kasta oo tahay waad bedelan kartaa aday kugu xiran tahay wata haddaan rabo Ethiopian ka dhiganaya haddaan rabo Soomaaliyan ka dhiganaya waa isku mid okay xaggaana wadanka u socod targetkaagu waa wadankee waa Germany waana xilliga ay ku bilaabanaysa fundingku waa bisha 3aad 4teeda 2023 ay soo bilaabatay yani applicationku ilaa 23 ilaa 26 bisha 6aad 9keeda oo soconaya marka waa target country-gu haga maxaa ku qoran target country-gu waa Germany waa application-kaas waqtigaas leh ayaana la codsanaya hoos hadaad u socotid waxaad arki doontaa sidoo kale commitment okay commencement oo ah yani waxa aad doonaysid waa graduates ama sartii isku dhufanaysaa korb in yar u laabo xagga waxa kugu qoran continue horaad u soconaysaa okay continue ku dhufo okay marka xaggan timaadid xaggani waa xaggii aad marka ka bilaabi lahayd wixii aad buuxinaysid horta xagga waxaa noogu qoran marka hore stepka koobaad maadaama uu yahay upload phone xaggan ay noogu qoran tahay xagga waxaa noogu qoran upload phone waa marka koobaadba oo rabtid inaad bilowdid application-kaaga xagga upload phone baa kugu qoran upload phone maadaama ay ku qoran tahay waxaa muhiim ah inaad horta formkii soo degsatid marka hore formkii xagganaad ka soo degsanaysaa okay waad ku dhufanaysaa uu kugu download garaynaya haddaan ku dhufto hadda download buu ii leeyahay hoos buu ii geynayaa bis anna xaggaasan ka qaadanaya okay raali noqo xaggan download formku waa kana xaggan klickiyadaasaad ku dhufanaysaa suu kugu download gareeyo okay waan ku dhuftay saasuu igu degay okay xaggan hadda wax yar Adobe Reader-ka weeye laakiin computerkaaga markaad kusoo degsanaysid saasuu kugu degay kadibna waad buuxsanaysaa waad arki doontaa waxa ku qoran subject groupka waxyaalahaas oo dhan markii aad soo buuxsatid formkaas oo diyaarsatid CV-gaagii application-ka baalkii motivation letter-kii shahaadadii wixiiba xaggaasaad ku bilaabaysaa wax kale kuma dhimana waxaad bilaabaysaa inaad upload garaysid mid kasta xaggaasaad ku dhufanaysaa upload baa soo leedahay xaggaanay kuu soo gelaysaa bis continue baad leedahay markasta continue next step horaad u soconaysaa continue next step baad leedahay okay waa markaad formkii soo degsatid aad formkaagii buuxsatid shahaadooyinkaagii diyaarsatid waxaagii ay kuu buuxaan ayaad xaggan dhex imaanaysaa waxaad ku dhufanaysaa upload form baad leedahay markaad upload form dhahdid waxaan ku dhufatid uu kusoo upload gareeyo continue next step baad leedahay asaa ku sii wadaya markaas haddana wuxuu ku leeyahay CV-ga upload gareeya waad upload garaynaysaa haddana wuxuu ku leeyahay hore u soco okay marmar waxaa jira uu kaa yar diido formka oo kale marka check formkaasaa jira ayadana formkaad check garaynaysaa haddii markaas wax ka khaldan yihiin wuu kugu celinaya wuxuu ku leeyahay nambarka waxaas nambarka 10aad ama nambarka 8aad waxbaa ka khaldan ee waxaas iska sax marka xaggaas adiyana iska sixi doontaa okay tan xaggan ay noogu dhan tahay marka formkii yacni sida portalkaad ku samaysanaysay iyo sidaad u apply garaynaysay waxa muhiimka ah waxay tahay formkaas markaad buuxinaysid waxa lagaaga baahan yahay 3 jaamacadood inaad ku buuxisid 3 jaamacadood aad ku buuxinaysid waxaad ka soo dhex dooran doontaa xaggii hore waxaan ku laabanaynaa markii koobaad website-ka aan soo galnay
يعني foomka codsiga waa in uu qofku ku qortaa 3 jaamacad oo isdhihi karaa la saddexdaas wax ka codsanaya saddexda oo la xiriirta saddex jaamacad oo la xiriirta lacag la'aan ah markasta waa inay jaamacadu lacag la'aan tahay ogow jaamacad lacag daadka ma bixinayso daad noloshaada kaliya ka fargaraynaysaa noloshaada ilaa 900 euro laakiin ma jirto haba yaraatee wax jaamacad lacagteeda jaamacad waxaa jira jaamacaduhu wax yar contribution la bixiyaa jiro 300 euro 250 jaamacaduhu midoo waasi lacagta semester lacagta oo kaar oo tigirkaagii iyo kaarkaagii waxaas ku jiraan laakiin lacag caadi oo semester oo 2000 3000 1500 laga bixinayo ma jirto jaamacad iska bilaash jaamacad waa inaad jaamacad bilaash noqoto okay marka waxaan ku dhufanaynaa si aan koorsooyinka u dooranno xagga ay noogu qoran tahay daad ama si jaamacad bilaash qofku raadsadaba si oo jaamacadii xaggaas ka helaysaa markastoo jaamacad u baahan tahay daadka database kaasaad gelaysaa database haddaan ku dhufanno hoos baad u soconaysaa xaggaa waxaa noo soo baxday dhowr option oo kala duwan waxaan ka qaadanaynaa international programs-kaan qaadanaynaa isaga noogu dhufo okay haddana waxay hoos u soco xagga maxaa kugu soo baxay haddaan yar idiin soo weyneeyo waxaa idiin soo baxaya course type course language iyo xaggaan ay ku qoran tahay fieldiga marka saddexda waan buuxinaynaa waxaan leenahay hadda tan koowaad baan ku dhufanaynaa waxaad rabtid waa master ay la bixinayo okay ayadoo sidaas waxaad kusii dhufanaysaa ayadaa isxiri doonta ama sidaasba iska dheh waxaad ku dhufanaysaa haddana course language waa English only wax kale cidi kaama rabto maadaama qofku san luqad kale German usan aqoon dalkan usan hore una leeyahay okay waa sax xagga marka waxa kugu soo baxaya imise koorso 1250 program baa available ah marka midii uu rabo qofka si dooranaya okay xaggana field of study gaagi baa ku jira field of study waa intaan waa la isku keenay agriculture forestry and nutritional science art theory engineering language and cultural studies anigu marka social baan hay waxaan dooranayaa ardaygu way kala duwan tahay ardaygu hadduu yahay social wuxuu dooranayaa law economics and social science haddii aad engineer iyo waxaas tahay engineer waa taa kore oo waa 350 koorsaag diyaar ah haddii aad medicine tahay waa xaggan hoose 60 waa diyaar ah sport 13 veterinary medicine 3 qof medicine soo barta Soomaaliya intii master ka qaato oo ogoliyana tahay soo sax okay marka law economics and social science baa leedahay surgery baan leeyahay marka wixii social ah kaliya ah ayuu ku tusi doonaa xagga maxaa noogu qoran master's degree accounting and controlling oo jaamacaddu ay tahay Berlin marka waxaad iska fiirin kartaa xaggan subjectiga waa maxay waa business and economic language waa maxay waa English duration ku waqti inta la dhiganayo waa 3 semester waxay bilaabanaysaa winterkaas laga rabaa inta badan dad waxay bixisaa qofku hadii uu si kale u waayo yani ayagu kula gartaan waa gaar laakiin sida caadiga ah waa inaad winter ka dhigatid October 2024 bilaabay marka lacagta lagu dhiganayo tuition fee-ga waa nan taasana marka muhiim ah waa inaad xagga tuition fee-gana aad ogaatid inay nan tahay soo ma aragtid xagga maxaa kugu qoran xaggaas waa maxay waa nan waa lacag la'aan wey jaamacadan marka jaamacadan marka aad rabtid inaad soo qaatid qof accounting aad tahay ayadii baad kalik siinaysaa wuu ku dhex geeyey waa koorsadan aad soo qaadanaysaa koorsadan kale aad ku buuxsanaysaa waxaad leedahay xaggan maxaa noogu qoran course detailka faahfaahinta koorsada okay course detailka cost fundingka requirementiga registrationka marka adigu waxyaalaha lagaaga baahan yahay waxay tahay inaad iska fiirisid
inay bilaash tahay inay bilaash tahay oo constant underfunding kaas oo kale waa kaas 300 euro la bixinayaa bishii tuition fee semesterkii ma ka wada tuition fee waa nan tigidkii iyo waxaas maamulka funding program with the university waxba kuma siinaysa jaamacaddu noloshu meesha waa Berlin waa waxa kugu filan 800 ilaa 1000 bishii waa sidaas marka xagan course detail kana waxaad ka fiirsanaysaa koorsada imisa grade hour weey meesha lagu weydiin doono marka iyo chapteradeeda international elementska okay waxyaalahan oo kale marka wakaas lecturada ay koorsadu dabooleyso grade hour-keeduna waa taas waad iska wada akhrin doontiin 210 grade hour ayaa meeshan kugu taalo qalinka xogayga booday 250 grade hour ayaa xagaas kugu taala marka waad arki doontaa marka waa sidaas koorsada xagaas ka soo qaadanaysaa waad soo gelinaysaa jaamacadda inuu la xiriiro qofka mid qasnay mise marka koorsada oo kale oo barnaamijka arko kale inuu foomkiisa gashto bisle foomkiisu gashanaya uma baahna jaamacadda inuu la xiriiro qaar kale oo fiirsanaya marka saddex xabo noocan qof saddex xabo saanaad fiirsanaysaa foomkaad ku buuxinaysaa sidaasna waad ku diraysaa laakiin xaqiiqa ahaan jiraan macnaha jaamacad jira si loo hubin yes ya inay lacagtuna hadda taasoo kale fiir jaamacadan oo kale waa lacag waa 2400 euro semesterkii marka taasoo kale cid kaama bixinayso looma baahna marka intaan hadda jaamacadood marka kugu soo saaray wakaas xagaas ku dhufanaysaa markasta maxaad leedahay next hore ku wadaya waan ku sii dhufto haddana hore u sii soconaya wakaas master's degree bio economy master's degree biological resources waka taas ku wadaya marka saddexda jaamacadood baad soo qaadanaysaa foomkii baad ku buuxinaysaa wabillahi tawfiiq saasaad ku buuxinaysaa waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontiin cid walba ha isku daydo ciddii nasiibkooda saacido ilaahay u qoray way heli doontaa insha Allah aad baad u mahadsantihiin